qof kasta fikir iyo kulli idea gaar leeyahay ka aniga ahaan waxaan bogaadinayaa oo soo dhaweynayaa ninka ragga inuu afar guursado diin meel loo dhaafo male wiilasha waa soo dhaweynaynaa inuu afar guursado xaaladii xilli baa jira gabadhu ay galayso ama uur ha ahaato ama asbuuc ha ahaato ninkii markaas oo kale ma sinadii banaanada loo fasaxayaa gabar kale waa in loo guuriyaa uu guursado gabdhow wiilashiina u guuriya gabdhaha ma garatay markii israafka guurkana xilliga guurkana israafka waa ka soo horjeedaa oo dee israafka diinta uma banaan soo maahan oo haddii la helo laba firaashood reerku isaga xajibto iyo laba daah oo daaqadii albaabka si lagu xiro dabiisha celinaya that's enough marka waxaan ku idinku wax fududeyn karaa maxaa u adkeenaysaan dhalinyaradu inta waa inna taliya taladu meel idin ka marayso anigu taas arrinka labaad waxa weeye anigu waa rabaa caruurteyda walaalahood caruur ah ay adduunka isku garbiyaan isku arkaan isku heshilaan ina arko anaa raba so do arrinka saddexaad ku soo dhaweynayo wuxuu noqonayaa akhu zaman baa la marayaa dumarkii waa batan ragina waa yiraahdeen marka dee anigu hal nin kuma daashoon karo ma garatay iyadoo gabdhii walaalahay ah ay meelahaas joogaan taasna waa jirtaayo waa sabab aan hadda igula sheergarin kartid marka saaxiibkii marka kulligan telefoon baan ka soo wacaya ama anaga wacayna inta waxa ka bilaabeynaa halo waligan isweydiinay kelmadda halo macnaheeda kelmadda halo horta waa kelmad ingiriisi waana magac naag weeyaan naagtaas Margaret Hello baa la oran jiray waxay ahayd gacalisada ninkii ikhtiraacay ama sameeyay telefoonka Graham Bell isaga magaciisa la oran jiray dadna telefoonka markii uu sameeyay markuu buu gacasidiisu wacay dadna kelmadii ugu horeysay uu dhahay baa magaceedu ahaa Hello inagana waa ku dhigna وفوضى marka inaynu ilowno ama hadda cidnaba garanayso ninkii sameeyay telefoonka laakiin gacaysiisii inama ilaawis allo alle naagan joogin bahari habeen heela ku hayna kolaanu ma dhaho ilaa maanta qisada ogaaday ma dhaho adiguna ma dhahda Saudi Soomaalidu waxay dhahdaa kun bay gabarashooyisa kan gar kalena waa kala baxdaa hadaba maanta waxa idin wada shan faa'iido gar ku leeyahay waliba rag wacasharkan si fiican u quseeyaa faa'iido kooda horta waxa weeyaan marka wada horta sunnihii nabiga raacdo garku waa sunno Soomaha nabiga ka sugnaaday faa'iido labaad waxa weeyaan garku mas'uuliyad iyo awood iyo dulqaad buu muujiyaa oo ninku markuu gar leeyahay nin mas'uuliyad qaadi karo dulqaad la weeye halka taacagseedo hadii aadan gar lahayn ciyaal manaaq ah tahay qodobka saddexaad waxa weeyaan soo jiidasho weeye garku oo 90% gabdhuhu waxay jecel yihiin ragga garka hadii beenta iyaga soo sheegaya qodobka afraad waxa weeyaan in qurux oo ninka ragga quruxiisu garka weeyaan oo wajhi qudqodo caata iyo uu qariyaa waxa soo dhan qodobka kale waxa weeyaan ixtiraamka ورجع كلو عن جرك لهني رجع دمان تود بنيك جرك اللي وك احترامي أجيين رجع كله قلب وجود ما يوحى ويان دنك عقل جاي يفكر في مستحيل مركل الإيجو وحال الشيء كان جرك عن هين لون قص أو قبصة مرك أرين لك يعني لكن كان كله فروس ده جلي أرين تهالمر بورفيا